bismillah kulan wacan oo wanaagsan waxaan rabaa maanta aan hortiina usoo fadhiistay inaan uga jawaabo su-aal marar badan kusoo laabatay maskaxdeena iyo markii la joogo baraha bulshada. su-aashaas oo ah dumarka Soomaaliyeed ee hadda maxay isku qaawiyaan kuwii horena maxay isku qaawi waayeen, farqiga u dhaxeeya maxay tahay ayaan rabaa inaan idiin sheego. sababta u dhaxayso oo kaliya waana arrin yar oo madaxayga kaliya kasoo maaxatay. waa macquul dadka qaar inay ila qabi karaan, dadna aysan ila qabi karin, laakiin markaan fiiriyey habdhaqanka ragga Soomaaliyeed ee anigaan qayb ka ahay ee hadda jooga iyo raggii hore ee Soomaaliyeed ee xilliyadii hore jiray, dhaqankooda markaan fiiriyey waxaa ii soo baxday ragga Soomaaliyeed oo aniga qaybta ka ah ee hadda jira inay mas-uul ka yihiin in gabdhaha Soomaaliyeed ay isqaawiyaan kadibna ay baraha bulshada isu soo dhigaan iyaga oo qaawan. haddaba waxaad isla markii isweydiinaysaa maxay tahay sababta ay ragga Soomaaliyeed mas-uul kaga yihiin, gaar ahaan ragga Soomaaliyeed hadda ay mas-uul kaga yihiin in dumarka Soomaaliyeed ay isqaawiyaan. haddaba laba macno ayaan kuu sheegayaa, adiga ayaa markaas go-aan qaadan kara. raggii hore ee Soomaaliyeed marka ay qaangaaraan ama ay haasaawo ay doonayaan dumarka Soomaaliyeed waxay ku xulo jireen, waxay oran jireen waxaan rabaa mid cod yar oo cod gaaban oo qeyladeeda aana dibadda laga maqlin. waana markay hooyooyinka Soomaaliyeed ay gabdhahooda oranayaan ay leeyihiin naqeylo badinida gabar ayaa tee aamus hoos u hadal. midda kale waxay oran jireen waxaan rabnaa, ama wiilku uu dhihi jira waxaan rabaa gabar waxbaratay. waayada xigmadda Soomaaliyeed ay oranaysana gabar waxbaratay waa bulsho waxbaratay. waxay ka fikiri jireen ama ay dooqooda ku salay jireen inay gabadhu tahay mid waxbaratay. markay ammaanayaan waxay dhihi jireen mid qoor dheer sida genyadii camal, ilkaha dabar ku leh, indho waaweyn iyo waxyaabo sidaas la mida ayay oran jireen. waxa ayna aabbayooyinkeenii ama hooyooyinkoodii hore ay dhihi jireen waxaad guursataa qof aad taqaanid, ha kuu dhasho waxaad taqaanid. sidaa marka ay orato gabdhihii Soomaaliyeed marka waxay samayn jireen way is asturi jireen, codkooda iska badaa inay isqaawiyaan, codkooda ayay gaabi jireen si ay u noqdaan dooqa koowaad ee ragga xilligaa jiray. waxaa kuu soo hartay ragga Soomaaliyeed ee hadda joogo. markaad weydiisad inaad tiraahdid ama wiilaa weydiisad dhalinyarada anigaan qaybta ka mid ahay, dooqiisa markaa weydiisid wuxuu ku oranayaa waxaan rabaa gabar xabad weyn, gabar lugo weyn, gabar mataqaanaa gadaal u weyn, waxaan rabaa gabar cabaayo leh oo mataqaanaa dabaqdabaqeen qoorta ku leh. intaa ayuu ku weydiinayaa. haddaba gabdhihii Soomaaliyeed ee hadda jiray markii ay maqlaan dooqa ragga noocaasa, markay maqlaan kuwooda caqliga yari waxay samaynayaan si ay u noqdaan dooqa koowaad. tii xabad isku aragtay waa inay xabadkeeda soo bandhigtaa si kuwaas u arkaan. tii isku artay inay baag weyn leedahay waa inay soo bandhigtaa si ay mataqaana kuwaas ay u arkaan. tii lugo weyn waa inay lugihii soo bandhigtaa siday kuwan u arkaan. tii qoorta cambaari ku lahayd waa in ay iyaduna soo bandhigtaa qoorta, sababtoo ah waxaa maskaxdooda ka guucayo badeecad waa tii bannaanka taalo. haddaba yaa keena marka gabdhihii inay isqaawiyaan? ragga Soomaaliyeed oo aniga qayb ka ahay dhalinyarada ee hadda joogo ayaa sababay. sababtoo ah shukaansigii iyo haasaawihii ayay waxay ka dhigeen qaab dhagoolnimaa. dhagoolkaa faraha isku taagtaaga sooma. markaad raggeeni aan dhahnay mid saas u kuusan, inta ka kuusan, inta ka ballaaran aan rabnaa, too dhaxyar aan rabnaa markaa dhahnay, haddaba waa inayna tusaan, way ku qasban yihiin
ay bannaanka soo dhigaan ilaa badeecad waa tii bannaanka taale waxaan oran lahaa marka laba mid raggeena Soomaaliyeed dhalinyarada khaasatan xilligan waxaan oran lahaa walaalayaal bilasxaani shukaansiga iyo hasaawaha dhagoolnimada ka daaya midda kalena waxaad ogaataa wax bannaanka yaalla ogow waa lagula leeyahay haddii lagula isticmaalo xataa waa lagula arkay waagaan yareena waxaan dhihi jirnay dharkeena iida intaa la gaarin saaxiibka markuu dharkaaga iidii tus markii lagu yidhaha waxaan dhihi jirnay maama dharkayga iidii in laga arka ma rabo haddaba dhar baa diiday in lagaa arko aad ka cabsato in lagu yidhahdo iidii shaatigan waa kugu soo arkay haddaba see ku guursanee dabaal yahow baac yahow dameer yahow see ku guursanee naag xabadkeeda dabadeeda lugeeda ay baraha bulshada yaalaan see u guursanee shaatiga ku iidaa diiday in lagu arko in la arka aad diiday see marka lug iyo daba iyo madax iyo qoor iyo xabad kaa horeeyo social media kaaga horeeyo see marka mataqaanaa adiga aad leedahay marka waa ku xarakoonayaan midda kale gabdhaheena Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaad ogaataa baaye xabadka dabada lugta qoor wax kasta way isbedeli karaan ogow wax kuusan ninkii kugu soo raacay biri markaa isbedesho heblaayo kuusan ayuu isna biri kaa raacaya marka si aad u noqoto qof maclan leh walaasheedii macno isku yaal raggeena Soomaaliyeed aniga qayb ka ahana bilisxaani jacaalka iyo shukaansiga iyo hasaawaha aan dhagoolnimada ka deyno ee dareenkii iyo soo jiidashadii iyo mataqaanaa sharaftii waagii hore la isku raaci jiray aan soo celino si gabdhaheena Soomaaliyeed ay sharaf u yeeshaan meel walba ay joogtaan waa idin salaamayaa waa miskiinka Cabdiraxmaan Maxamed oo idin leeyahay noloshu qiimo waxay leedahay markaad adiga qiimo u yeelad aan isqiimeyno si ay dadka noo qiimeeyaan wabillahi tawfiiq